Assalaamu calaykum walaalahayga Soomaaliyeed. Waxaan halkan saaxiibka ku nahay oon wax ku wada munaaqashay jirnay dalkanaga iyo diintanada aan uga hadli jirnay. Sida aad og tihiin waayadan ismaan arkin ilaa bil waan kala maqnay. Aniga waxaan ku kala maqnayn waan idinka soo gaarsii waayey. Arrin waxay ugu noqotay kedis ah oo jira ila soo gudboonaatay. Waxa haddii aan idiin sheego waa wax aad iyo aad u yar tahay inuu inta badan dadku rumaysto. Waxaas aniga naftayda galaafan karay oo aan ilaahay uu naga qabto. Inna ilaahay ciidankiisa aad iyo aad ayuu u fara badan yahay. Waa wax yar, waxaa cunay bahal yar oo la dhihi karo shilin ama la dhihi karo caara yar. Aniga duurkan ku jiraa inta badan geedaha iyo beeraha iyo duurkan gelayay. Marka meesha waxaa jooga bahala yar yar oo hadday ku qaniinaan halis naftaada gele oo dhime kartid ama baralays noqon kartid ama maskaxdu ay ka tagi karto oo saa ku tagi kartid. Dad badanaa ku dhinta. Waa bahal aan halka idiin soo saari doono sawirkiisa. Qofkii yaqaan waa yaqaan, qofkii aan aqoonna hadda ha barto, ha iska fiiriyo. Halaga dadka Soomaaliyeed waddankan aan degan iyo meelaha la midka ah ha iska bartaan, ha la iska baaro, ha laga digtoonaado waxa dadka meesha la joogo ay sameeyaan ha la sameeyo. Maxaa yeelay aniga geedkan waan arki jiray, waan maqli jiray, waxaan u haystay aad ba isagama tixgelin halista uu caafimaadka iyo nafta u leeyahay. Bahalkan sawirkiisaan halkaan idiin soo saari doonaa. Waa geedka naftiga jari rabay. Aniga bishaan oo dhan inteeda badan waxba maana ogeyn. Macnaha dhibka soo gaaray, socodkii ayaa iga halaabay, waxaa iga halaabay maskaxdii, wax walbaa hilmaamay. Asbuuc dhan ayaana waxba aanan kala ogeyn. waa wax aad iyo aad u xanuun. Waxaan ka sheekay karo maanta cudur aan ka aniga cudur igu soo dhacay ama xanuun aan arkay aan ku masali karo ma jiro. Bahalkan cudurkan waa halis. Horta dadka waaweyn ma ka badbaadayaan, iyo qofkii ilaahay macnaha cudurro kala qaba iyo qofkii ilaahay sabab uga dhigo macnaha lagama badbaadi karo. aad iyo aad u halis u yahay. aad iyo aad ayuu halis u yahay runtii. Aniga alxamdulillaah ilaahay hadda waa soo caafiyey inaan madho quraankii iyo akhriskii iyo bilaaba iyo aan rajaynaa iyo wanaagii. laakiin weli waxaan dareemayaa caafimaadkayga wax weyn ayaan dareemayaa inay igaareen oo ku saabsan bahalkan iyo wax uu soo marsiiyey iyo meeshii maaragta aan isla gaarnay iyo xaaladihiisii. aad iyo aad ayuu halis u yahay. dadka Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa inay ka taxadaraan oo geedkan waa la iska tallaalaa. Waddankan waa la iska tallaalaa. dadka dhan oo waddankan u dhashay way iska tallaalaan. maqashan tallaal uu leeyahay qof meesha uu jooga ha weydiiyo. tallaal ayuu leeyahay kabacdina 5 sano kasta oo lagu tallaalaa. bahalkaana laga tallaalaa. wuxuu ku dhig jiraa magaaladuu joogaa, magaalada agteeduu joogaa. geedaha meelaha uu saaran yahay markaas soo ag martuu kugu soo boodaa waa kugu dhagaa dhiiggaaga mar hadduu helo bis waa. marka ha la taxadaro. halkaas ayaan maaragtay aniga insha allahu tacaala hadda waa roonahay, waa fiicanahay.
intii iisoo maaragtay la soo xiriirtayna way ku mahadsan yihiin. ajri xasanaad allah idinka siiyo. alxamdulilah caafimaadkayga hadda wuu fiican yahay, hadda waa soco karaa. madaxa iyo maaragtay waan soco karaa hadda. awal mararka qaarkood ma u soco karinin, laakiin hadda waa soco karaa. alxamdulilah ilaah mahad leh oo mar kale caafimaad iyo inaan neefsado iyo inaan tukado iyo inaan sujuudo maaragtay awood ii siiyey. maxaa yeelay ma sujuudi karin, ma tuka karin. aad iyo xanuun xunaysa, waa miyirka mararka ugu maqnaay. aad iyo aad aan dhibaato u soo maray. alxamdulilah ilaahay dembi dhaaf ha nooga dhigo. waa idin salaamaya dhammaantiin. salaamu calaykum.